Bismillahir Rahmanir Rahim kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan si walba oo aad markaasi inoo maqlaysaan halkani waa raadiyoga codka gobolka Gado kuna soo dhawaada warbixin daafaca caalamka naga soo gaaray warkana waxa idinla socodsiin doono anigoo Nuurdiin Xasan Deeq qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah baarlamaanka Jubbaland oo maanta ay doortay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo ku-xigeenadiisa shir looga hadlayo ammaanka oo lagu qabtay magaalada Beledweyne qarax ka dhacay magaalada Muqdisho wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya oo u mahadceliyay boqortooyada Sacuudi Carabiya qodobada dibadda aynu ugu haynana waxa kamid ah Rashida Duleeb oo ka gacan saartay ogolaansho ay ka heshay dawladda Israa'iil dhageystayaal qodobadaasi qodobo kale aad ku maqli doontaan waa tahay dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan ciidamada 49aad guntada 10aad qaybta 43aad ee Baardheere ayaa maanta howlgalo ka sameeyay deegaanada hoos yimaada Baardheere warkaasi waxay magaalada Baardheere inoogu soo diray Cumar Idruus Ahmed ciidamada ururka 49aad guntada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gado ee saldhigga Baardheere ayaa maanta burburiyay saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada magaaladan Baardheere ee gobolka Gado gaar ahaan deegaanada Daar Macalin iyo sidoo kale deegaanka Cabdi Afey Daar Macalin waxay Baardheere u jirtaa qiyaas ahaan 30 kiiloomitir halka deegaanka Cabdi Afeyna u jirto 45 kiiloomitir kagana beegan dhanka galbeed ee magaaladan Baardheere xidigle Maxamed Wali Cabdullaahi Xirsi abaandulaha ururka 49aad iyo sidoo kale Dhamme Cali Maxamed Xasan taliyaha ururka 49aad ee guutada 10aad ayaa warbaahinta la wadaagay ujeedka howlgalkan iyo sidoo kale qasaaraha nabadiidka loo geystay waxaan ka howlgalnay deegaanka Cabdi Afey oo u jira kiiloomitir ahaan degmada Baardheere 45 kiiloomitir wuxuu ahaa deegaan ay al-shabaab ku dhumaalaysan jireen kana dhibaateyn jireen ummadda Soomaaliyeed oo isbaarooyin iyo waxay wada goos u joogeen buu ahaa howlgalkan wuxuu qayb ka howlgalada hore u socday qayb ka horay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan guud ahaan ay wadeen annaguna ururka 49aad nahay aan qayb ka ahayn deegaanna ku xeeran Baardheere oo hore aan u tagnaa jiray howlgalka sabab uu qayb ka ahaa meesha waxay bar ay fadhiisan ku leeyihiin nimanka nabadiidka al-shabaab howlgalka dagaalka baa ka dhacay saaka wuxuu dhacay howlgalka abaara 3 saac oo subaxnimo saaka markay ahayd ciidamada loo qorsheeyay ka howlgalay isla haddana meesha aan kala hadlayo ku suganahay wajiida hore ee dagaalka Ilaahay waa noo guulay cadawgana khasaare baan ayaa ka soo galay ma jooga cadow badan ma jiro wax yar oo isbaara loogu talagalay jooga ciidan hadda badan oo culus annaga noo bari karin muusan joogin ayaguna khasaare baan ka soo gaaray waad arkaysaa deegaanka hadda meesha iyo deegaanka ay deganaan dugaga ay ku jiraan iyo meelihii mataqaanada dadka ka dhibaateyn jireen oo in hadda ay gubanayaan raashimo meesha ay ku aruursanayeen ayaga mataqaanaa hay laftooda oo khasaaro ka soo gaaray dhimasho dhaawac leh annoon Ilaahay baa noo guulay meesha hadda ka hadlaynay aan joogno sidaad u aragtaanba wajiida hore ee Cabdi Afey kooxaha nabadiidka ee caadaystay inay dhiga muslimiinta ay daadiyaan iyo hantida shacabka Soomaaliyeed banaystay oo ku caawin qabateenayay mataqaanaa dhaqaale ahaan iyo tabac intaba iyo isdhaxmarka bulshada intaba caqabad ku ahaa sidaad ogtiin baan hore uga saarnay tuulada Cali Xareed iyo mataqaanaa Daar oo loo aag bedelay ee la geeyay Cabdi Afeeyay ya abaarihi 12 aroornimo ee saakay aan ku galnay waan uga gacan saaraynaa howlgallada waa howlgallo qorsheysan ee loogu talagalay nabadiidka mataqaanaa in looga gacan sareeyo mid baahsan ma ahayn wuxuu ahaa mid qarsoodi ah looguna talagalay cadawga inuusan helin xogtaada si aad uga gacan sareyso aad baa u mahadsan tahay waxa weeye guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay dawladooda ay garab istaagaan lana garab istaagaan xogaha iyo mataqaanaa informationada cadawga iyo hiiliho intaba annagana waxaan diyaar u nahay inaan dhiiganaga u hurno una dhimana dawladnimada hadii Allah wadala ogolaado sidaad ogtahayba
waxaa noo qorshaysan in la xoreeyo jubbooyinka sida madaxda naga sarreysa ay ugu shaaciyeen horey u shaaciyeen in la xoreeyo jubbooyinka iyo meelaha ay ku dambeeyaan nabadiidka oo ah saldhigyada u ah in laga xoreeyo sidaa darteed annaga taliskanaga waa garbaari guutada ay degan tahay waddada isku xirta garbaari iyo baar dheer ayaan saaka ka howlgalnay waan uga gacan sarreynaa insha allahu tacaala wixii dhimanna waa soo afjari doonaa baarlamaanka Jubbaland ayaa maantay doortay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu helay Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan 55 cod Xuseen Shiinow Cali oo la tartamayay wuxuu helay 18 cod aadan Khaliif Xaaji ayaa ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland mana jirin musharax la taagnaa sida awgeed gacantaag ayay ku doorteen baarlamaanka isagoo helay 72 cod sidoo kale Cabdi Baalle Xuseen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland uu ku guuleystay kadib markii uu tanaasulay musharaxii la taagnaa gacantaag ayuu ku helay 73 cod shir looga hadlayo ammaanka ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne warkaasi waxaa inoo diyaariyay Luqmaan Cabdullaahi Kerow gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Maxamed Caraale ayaa maanta shir gudoomiyay shir looga hadlayay ammaanka gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgalka ka dhanka al-shabaab shirkan looga hadlayay amniga ayaa waxaa ka qayb galay taliyayaasha ciidanka gobolka iyo kuwa AMISON iyagoona diiradda ku saaray dib u xiraynta deegaanada iyo diyaargarowga abaabulka qorshaha la doonayo in lagu furo wadooyinka Beledweyne Buulobuurto ilaa Fiidow iyo soodinta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe gudoomiyaha ayaa u mahad celiyay wadamada ciidamada ka joogaan gobolka gaar ahaan kuwa Hiil Walaal iyo sida diyaarka ay ugu yihiin inay kaalin mug leh ka qaataan la dagaalanka kooxda al-shabaab waa tahay kaasi wuxuu ahaa Luqmaan Cabdullaahi Kerow oo inoogu waramayay shirka looga hadlayay ammaanka oo lagu qabtay magaalada Beledweyne qarax ka dhacay magaalada Muqdisho warkaasi waxaa inoo ambaqaadaya Ilyas Abdirshiid Cabdiqaadir faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax miino oo ka dhacay agagaarka xanta dheer ee magaalada Muqdisho sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen dadka deegaanka qaraxa ayaa ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda ilaa ay haddana si rasmi ah looma oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay sida dadka deegaanka ay sheegayaan qaraxa ayaa ka dhacay wadada u baxda xarunta maamulka degmada Dayniile gaar ahaan meel u dhow isbitaalka Guutaale ciidanka booliiska degmada Dayniile ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana la sheegay in ay halkaasi ka sameeyeen howlgalo ammaanka lagu sugayo wasiirka aqoonta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa u mahad celiyay boqortooyada Sacuudi Carabiya warkaasi waxaa inoo haya Xuseen Cabdirasaaq Sheekh wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa bogaadiyay howlaha iyo adeegyada ay boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u diyaarisay xujayda sanadkan wasiirka ayaa tilmaamay horumarka weyn ay boqortooyada Sacuudi Carabiya ka gaartay nidaamka iyo fududeynta adeegyada xujayda sanadkan kuwaasi oo si heer sare ah loogu diyaariyay isla markaana loogu soo kordhiyay adeegyo casri ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Mudane Sheekh Nuur ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay wasaaradda xajka iyo cumrada boqortooyada Sacuudi Carabiya sida wanaagsan ay xujayda Soomaaliyeed ugu adeegtay iyadoo u fududeysay dhammaan adeegyada ay u baahnaayeen wuxuuna tallaabadaas ku tilmaamay inay tahay hiil walaaltinimo wasaaradda cumrada iyo xajka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sanadkan waxa ay ku soo kordhisay adeegyo casri ah iyo barnaamijyo kuwaas oo ka qayb qaatay fududeynta adeegyada xujayda sanadkan dhegeystayaal wili waxaa si toos nooga dhageysanaysaan raadiyoga codka gobolka Gado haatanna qodobadii dibadda haweeneydan ka tirsan Koongareeska Mareykanka ee Rashida Tlaib ayaa ku gacan saydhay ogolaansho Israa'iil u siisay in ayadeeda ku booqato danta galbeed ee la haysto waxay sheegtay in shuruudaha lagu xidhay socdaalkeedu yihiin kuwa adag oo duleen ah isla markaana aan sida lagu aamusin karin iyada markii horeysay ayaa Israa'iil shaacisay in Tlaib loo ogolaaday inay halkeeda u socdaasho kadib markii ay aqbashay inay joojiso ololaha ay ugu jirto in dunida Israa'iil ay go'doomiso arrintan ayaa imaanayso iyadoo Israa'iil ay xayiraad ku soo rogtay labada gabdhood oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka
kuwaasoo si weyn u dhaleecan jiray Israa'iil waxaana laga mamnuucay inay booqasho ku tagi karaan. dhegaystayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay war wixii daafaha caalamka naga soo gaaray. warkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo Nuurdiin Xasan Deeq, dhinaca farsamada waa Ilyas Dirshiid Cabdirasaaq. halkaad markaasi naga dhagaysanaysaan waa raadiyo Codka gobolka Gado. dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa bahda raadiyo Gado oo isku duuban sida iyo nabadgelyo.